السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka aad doonayso in aad nolol sare gaadho, marka aad rabto in aad darajooyinka sare nolosha gaadho, marka aad rabto in aad ka baxdo nolosha aad hadda ku nooshahay, waa inaad buuxisaa shuruudaha. Shuruuduhu maxay yihiin? Marka hore waa in aad noloshan hoose aad ku nooshahay, waa inaad diyaarisaa qorshihii aad kaga bixi lahayd. Waa inaad diyaarisaa dariiqii aad u mari lahayd nolosha darajada sare ee aad rabto inaad gaadho. horta diyaari qorshe, keen fikir, banee dariiqa guusha ee aad rabto inaad nolosha darajada sare u marto. horta dariiqa banee, markaasaad gaadhi kartaa nolosha. laakiin haddii aadan qorshe diyaarin, haddii aadan fikirin, haddii aadan dadaalin, haddii aadan banayn dariiqa, sideed u rabtaa inaad gaadho nolosha sare? Sideed u rabtaa inaad guulaysato? Sideed u rabtaa darajada sare ee aad rabto inaad gaadho? sideed u rabaysaa adigoon noloshiiba bedelin, adigoon qorshihiiba keenin, adigoon fikirkii la iman? ma gaadhi kartid. laba qodob baan ku haya anigu. mid waa kan koobaad, waa inaad marka hore diyaarisaa noloshan aad ku nooshahay hooseysa qorshihii aad kaga bixi lahayd. waa inaad furtaa dariiqii aad u mari lahayd nolosha sare. waa in aad furtaa dariiqii guusha. waa in aad diyaarisaa qorshaha saxda ee noloshaadan hooseed ku nooshahay aad ku bedeli karto, kuna gaadhi karto nolosha sare ee rabto. qorshaha la ima marka hore. qodobka labaadeen ku haya wuxuu yahay, rabitaanku waa wax qof walba ku abuuran. qof waliba damac buu leeyahay, qof waliba wax buu rabaa. laakiin rabitaanka qofna ficil buu raaciya, qofna ficilku ka reeba. marka aad rabto in aad nolol sare gaadho, marka aad rabto inaad guulaysato, waad rabtaa oo keliya. laakiin haddii aadan ficil raacin, haddii aadan dhaqdhaqaaq raacin, haddii aadan bedelin noloshaada, haddii aadan barta aad joogto ka dhaqaaqin, lagama yaabo inaad gaadho. waa laba miduun, qof rabitaankiisa ficilka raaciya dabadeedna guusha gaadha, qof rabitaankiisa ficilka ka reeba dabadeedna halku fadhiyo qayrkii ku dhaafan. bal iminka tusaalaan ku siinaya, geed cidla ku yaalla ayaad hoos fadhiisatay harkiisa. bal haddii aad tidhaahdo ka waran, harka anu halkaas maa iska fadhiyayaaye harku ha dul joogo, dee waa maya, waxaan suurtagal ahayn weeye, wuu wareegaya harku. bal ka waran haddii aad tidhaahdo waan iska fadhiyayaa, anigu qolkaygaasaan iska fadhiyaya, gurigaygaan iska fadhiyaya, dee guushuna haya timaado. xagla laaban xoole kuma yimaadaan bay Soomaalidu ku maamahda. adigoo halkaa fadhiya unbay qayrkaana ku dhaafi, guulna haba sheegin, adduunkuna saasuu kaaga tegaya. laakiin waa inaad samaysaa rabitaankaaga, waa inaad ficilka raacisaa, waa in aad dhaqaaq samaysaa. halka aad joogto waa inaad ka dhaqaaqdaa, isbeddel samee. kadib waad arkaysaa natiijada kaaga soo baxdaa waxa aad samaysay. qofna rabitaankiisa ayuu ficilka raaciyaa, qofna rabitaankiisa ayuu ficilka ka reebaa. waana midha keliya ee adduunkan la isku dhaafay laguna kala guulaystay.